kulanti wacan saaxiibayaal hadda waxaan dhex joognaa bartamaha magaalada Jigjiga kilalkii hore ayaan joognaa waxaan wadnaa street questionska su'aalihii wadada waxaan weydiin doonaa hadda wiilka kan hortaagan iyo dhalinyaro kale oo ka qayb qaadan doonta barnaamijka su'aal iska kaftana ama fikradooda ah soo dhow ustaad marka hore Wadhow walaalkii qaali waa mahadsan tahay magacayguna waa Zakariya Yacquub Rashiid. Zakariya aad baan u faraxsanahay inaad ka mid noqoto ka qaybgalka barnaamijka maanta bal su'aal baan ku weydiinayaa sadar Kaayo dhimalana haddan garanayn ka jeeda su'aasha waxay ka oranaysaa weli ma ka qayb gashay horta aroos ama ma noqotay weli maxis malaxiis miima noqon laakiin waan ka qayb galay laakiin malaxiis ma noqon. Ma noqon. su'aasha waxay ka oranaysaa bal waxaad ii sheegtaa waxyaabaha uu maxis ku qabto hal iyo laba Waxyaaba uu qabto saan dee aanu inkastoo noqonin saa u malaynayo inuu caawiyaha yahay caruuska intaan baan ka ogahay. maxaas leedahay waa lagu soo xushaa maxis Malxiiska waxyaaba lagu soo xusho wallaahi ma garanayo malxiiska lagu soo xusho ma garanayo. soo dhow saaxiib aad baan u faraxsanahay inaad ka mid noqoto ka qaybgalka barnaamijka maanta بسم الله وان دواي صاحب عادي مقاعيقنا واحد ناصر عمر علي naasir waxaad ka mid tahay dhalinyarada hadda soo kacaysa waxaan filaya weli maad maxis noqon su'aal baan ku weydiinaya fikradaada bal ka waran sidee u aragtaa وعادي وانا قراي su'aasha waxay ka oranaysaa waxaad ii sheegtaa maxaad leedahay uu qabtaa maxiiska shaqada maxiiska ملحس كلي طنس كدي وا غرغاري يعني قف اروسكي كل مثلي وين انو اصلا مريني maxaas leedahay waa lagu soo xushaa isaga طبعا اسلي وا قف ادو قف اسكو دويين اما صاحب اما ولال اما المادير قف اساس دويين هذا ما marka hore adigoo ku bilaab magacaaga horta sax waan dhawa mahadsan tahay magacaygu waa Cabdimajid Cumar Gaaciye marka waxaan farsanayn channelka ka soo muuqdo anaguna sidoo kale aad baan u faraxsanahay cabdinashiib su'aal baan ku weydiinayaa sida dhalinyaradii ka horeysay oo kale aan weydiiyey marka su'aasha waxay ka oranaysaa bal iga sheeg hal iyo laba waxyaabaha maxis ku qabtaa leedahay shaqadiisa gaarka ah weeyaan wallahi maxiiska horta dee waxa weeyaan waa wiilka ugu dhow ee arooska maxaan dhahay soo kaxaysan karo hadduu saaxiibkiisa ugu dhow yahay iyo hadduu yahay maxaan dhahay qof ay family yihiin dee hawluhu qabtaan kulley hawlo saa aad u badan ma waa hawlo hadday ugu badan yihiin dee hawluhu in arooska habeen inta hore ma garanaysaa toddobaadka hore inuu toddobaad bixiyo sida dee maxaysadoo kale saas kan kaaminsan shaqada maxisada qabto isku shaqo may noqon karaan labadooda maxisada ma noqon karaan sababtoo ah dee gabadha maxaysadii hawlo badan bay qabanaysaa laakiin isagu waxaa laga yaabaa inuu xagga maaragtay isaga hawlaha u gaarka ah caruus kaliya hawlaha u gaara jira ma hawlaha u gaarka inuu filmiyo bas dhacdo waa kaas soo dhawaada aad baan u faraxsanahay inaad ka mid noqoto ka qaybgalka barnaamijka waa soo dhawaadaan aad baan u dhawahay insha allah su'aal baan ku weydiinayaa sida dhalinyarada ka horeysa aan weydiinayo oo kale marka su'aasha maanta waxa weeyaan maxaad leedahay uu qabtaa maxiisku shaqada maxiisku qabto ama caruuska uu qabto maxaa ka mid ah anugu shaqada malxiis u qabto ninka caruuska uu qabto qajilaada unbuu ka ilaaliya qajilaada maarta yuu ka ilaaliyaayoo saas uu kala fadhiyaa malxiis laakiin intuu kaco soo shaqeeya haddana kursiga ku soo noqdo ma jirto ninkan marka caruuska iyo qajilaada ka yara difaaca marka maxaa lagu soo xushaabaa waxaa lagu soo xeshay waxa weeyaan weliba ninkan caruuska iyo ninkan malxiiska waa inay isu yara ekaadaan oo isku labis noqdaan qaabkaas weeyaan saasaa loogu soo xeshay shuruudaha marka qajilaadka ilaaliya weeyaan isagu waxaad iga sheegtaa laba ama hal shaqada uu maxiisku qabto shaqadu hee malxiiska horta caruuska caruusada marmarna daaqaduhu ka daawadaa midi kale arooskana wuu qurxiyaa labadaas aan ogaa